السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaad khaliiji waa mar walba kula socotaan cilmiga kombiyuutarka iyo barnaamijyada multimedia. Cashirkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo business card. Waa cashirkii shanaad aan ku baran doono insha Allah. Business card waxaa la lahaa barnaamijyada inta badan xogta lagu diyaariyo, tusaale ahaan kambani cusub ama meel cusub haddaad rabtid inaad booqatid oo kambanigaada ahaan inaad u tagtid, xogta waxaa lagu qora business cardka. Contactiga waxaa kaloo lagu sameeyaa adresska meesha aad degan tahay, social media ha isticmaashid insha Allah. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena, fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay ugu faa'iidaystaan muuqaalada mar walba ay soo gudbin insha Allah. anagana waxay noo tahay dhiirigelin janaalkeena soo boordigaraysid asxaabtana la wadaagtid insha Allah. kusoo dhawow cashirkeena. marka ugu horeyso photoshopka soo kici. photoshopka markaasaan usoo kicisid, create the new document. create-ka markaas saas u doortid, cabirkan qaybtan 4 centimeter dooro. waxaad dooranaysaa 9 qaybta kor width-ka, qaybta hoosena waxaad gelinaysaa 5.8 ama 5.8. resolution-ka waa inuu 300 ku ahaada. meeshan RGB inay ahaato, CMYK ha dooranin. kadibna meesha maxaad qoraysaa business card. business card ayaad ku qornaysaa, kadibna create ayaa leedahay. hadda failkan waxaan rabnaa cabirka mashiinka. hadda waxaa waaye shaashad cabirka guud ee markii daawacad loo diray, laakiin waxaan rabnaa cabir inaan u sameyno. sidee ugu sameyn kartaa? image inaad dooratid, conversize dheh. meesha waxaan gelinaysaa 8 inta mashiinka uu jara 5.5 aa leedahay. okay, mastarada soo qabso, qaybtan cabirada saas calaamadan waxay kaa caawinaysaa. hadda like cabirka waxa waaye cabirka mashiinka uu jaray, waxaan rabaa cabirka daawacada uu qaadanayo. image conversize, haddii cabirkaas aad ka dhigtid inta 9 ka dhig oo cabirkii hore ka dhig 5.8. kadibna okay, mashiinka daawacadiis intaas waaye. waxaa darbiga aad soo sokatay geesahan saas. xogta waxaa la rabaa inaad dhulka meeshaas cabirka aad saartid inaadan geynin. okay, loogada soo geli, control 0 dheh, desktopka dooro. waxaan ku sameynaynaa loogada laga leenahay kana. this is logo. okay, soo daragelay inta keenso, qaybtan inta ka dhig. okay, simple, wax fudud iska sameey, wax dhib badan ha isku murjin. waxaa laga yaabaa logooyinka waxyaabaha jamka mashiinka markii loo dir inta shape soo qabso, kadibna layerskan soo bixi, colorka kambanigaada ka dooro, kadibna okay dheh, control A dheh, center key waxidis hal xaba kaleed, control J dheh. waxaad dhigi kartaa alt drag ama control J, color ku bedel. hoos inaad geysa rabtaa, control qabo calaamad garidanka ila sidanka mujeedo, kadibna kor u soo bixi. haddana control J dheh, waxidis color ku bedel. waxaan rabaa farqi in mashiinka marka la jaray in color cadaan uu soo galo aad u baahan tahay. okay, colorkan soo qabso, shape soo qabso. intaan waxaa rabtaa ka dhigi kartaa colorka rabtaa sameyn kartaa. control A dheh, center. okay, textii click ku si background-iga magacaada ku qoro. tusaale ahaan Abdisalaan Alkhaliiji ayaan ku qortay. fartan bedel magaceed imqancinin. waxaa leedahay fontiska badanaa isticmaal insha Allah. iidana waxaan sameyn doonaa group waxaa jira oo telegram oo waxyaabaha resourciga aan soo dhigay insha Allah. linkigiisa qaybta description ayaan soo dhigi doonaa insha Allah. okay, popnis aan doonaynaa, popnis bold. okay, saas markaa u dooratid, laakiin waxaan rabaa farta cagaarkan waa iska bedeli kartaa. shapekan soo qabso, control D dheh,
waxyaabahan hadda shaashada markii saa ay u weyn tahay wax weyn aa u maleysaa, laakiin mashiinka markii daawacad loo jiro waxaa laga yaabaa wax yar inay isbedeshay noqoto. kadibna okay dheh, ama tig qaybtan tigta saaro, control jd ama alt drag ku samey titleka qofkan. okay, titleka waxaad ku qoreysaa tusaale ahaan director. director ayaan ku qoreynaa, control ayaa dheh, farta bedel size-ka, wax bedelisa size-ka, farta magaceed ha ku ahaato, laakiin far waxaa la qaataa oo waxay leedahay subdomain ay leedahay. subdomain waxaa laga wadaa farta regular, medium, bold inaad ka dhigan kartid. colorku bedel. okay, kadibna tig saaro, sababtoo waa dhamaysatay. dhexda ku aadi ama control ayaa dheh, calaamada centerka dooro, automatically saas oo u aadaysaa. okay, social media textii soo qabsadane, fontis waxaa jira wallahi typicon kana soo qabsanayna, waxyaabaha isticmaashid dhan ayaad qoreysaa. fartaan hadda waa isbedeleysaa. waxyaabaha aa u baahan tahay kow waxaa ka mid ah whatsapp lambarka icon ahaan u isticmaalaysaa, wr riixaysaa bes. waxaa kaloo u baahan tahay tusaale ahaan email, waxaa kaloo u baahan tahay facebooka, waxaa kaloo u baahan tahay locationka, intaana u baahan tahay. okay, select gareyso dhammaantood, qaybtan inta keenso. okay, haddana textigan dooro, soo qabso inta keen. tusaale lambarka ayaad qoranaysaa, calaamada control shift qabo 252 6 sababta waxaa waaye qaybtan inta jirto. okay, control ayaa dhehsaa waxaa lahayd windowska tag, windows aa tegaynaa, character ayaan doornaynaa, ishaan carabiga laatiin kari automatically waa qaadanay. marka sidaas u samaysid inta badan waxyaabaha ay qaadanaysa ay ka mid tahay. ha ismurjinin, waa feelasha sidaas u samayn kartaa. kadibna inta sidaas markaa u doortid, qaybtan inta dooro oo carabi ah, english carabiga ku doona english aad door kartaa. okay, lambarka sax 2526. okay, farta control ee dhe bold ka qaad, haddana particular dooro, farta kalarkeeda bedel maadaama contact ay tahay black click. sizekeeda waxaa rabt ka yaray maadaama xogta muhiimada magac ay tahay 10 camal ka dhigi kartaa, waxaa kaloo ku dhigi kartaa 8. waxaa laga yaabaa emailkaada inuu mara qaarkood ugu dheeraado, hal format inay isticmaashid. alt jd tusaale ahaan info ama al.alkhaliji@gmail.com. mara qaarkood emailkaada inuu dheerto waa laga yaabaa. okay, haddaan drag garay alkhaliji ayaan qoraynaa userka. okay, haddana meeshaan qaybtan waxaad qoreysaa muqdisho soomaaliya. sida markaa u samaysid wax yar qurxin daaribtaa ku dari kartaa. tusaalahan loogada camal, loogada keligeed waxaan sameynaynaa inaan soo jarno. qaybta loogada tag, soo daraagarey, control a dheh, control c, qaybtan tag, control v.
opacity u yaray direct 5 ayaa la doornaa meeshan opacity laga yareynaa ama 10 iyo 5 waxaa rabtaa ka dhigi kartaa 20 labada saas waay qayb waa la jara qaybna computerka ku jirta backside ka xarid meesha rabtaa dhigi kartaa dambeysii kartaa save gareyso waxaa laga yaabaa mashiinka computerkaada mar walba inuu isbedel ku dhaco business card ayaad qoranaysaa qaybtaas waxaa waaye frontiga qaybta back la rabaa tan control shift s dheh back dooro inta waxaad qoraysaa back ku qor okay waxyaabahan iska delete garay okay loogada kaliya dhaxdan soo dhig kuweynay control a dheh center dooro control d background waxaan rabnaa inaan background color aan ka dhigno double click dheh color dooro okay qofka ku xir background loogada colorkeed bedelada xarbna cadaan inaan ka doorano koodka 4 okay bedeltan opacity-geeda badi waxaad ka dhigaysaa cadaan laakiin cadaankaasi waxaan rabnaa meeshaan camal stroke inaan dooratid marka ugu horeysa stroke ahaan inaan usoo gelinaa rabnaa stroke dooro cadaan dooro stroke-gaasi kadibna iyadana cadaan dooro color overlay waad dooro kartaa okay meeshaan filka ever ayaad ka dhigi kartaa control s haddaad dhahdid mashiinka doodii qaybtaan way bixaysaa halaana ku soo haray saas oo samayn kartaa business card-ka markuu horeyso front haddaad samaysid baagisaas uu fudud yahay insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkii aan ku baranaynay sida loo nashqaday business card qurux badan oo cabirka daawacaada loo adeegsanayo insha allah kuma dhibi doono hadda kadib in business card cabirkiisa aad fadhiisan doontid insha allah haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe like share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan muuqaalada mar walba aan soo gudbino waxaynu tahay dhiirigelin channelkeena sabarta karaysid asxaabtaadan la wadaagtid insha allah waa inuu mar kale iyo muuqaalo kale oo xiiso badan